السلام عليكم. caawa oo ay taariikhdu tahay 13 bisha May 2025 dalkii Soomaaliya marxalad kale ayuu galay oo aan hore u dhicin 25 sano la soo dhaafay 2000 ilaa hadda oo aan 25 marayno muddo xileed kasta oo madaxweyne iyo dawlad kastaba markii marxalad laga guurayo oo marxalad kale loo guurayo wada tashi isfaham isjiid ayaa lagu gaaray ee ma jirin go'aan madaxtooye ka baxo ama go'aan xisbi intuu gaaro dalka dhan ka hirgalay ma jirin in wax la isaga tanaasulo in wax la isku qabto in la isku turo la wada fariisto ayaa marxalad inta loo guuraa marxalad kale lagu soo gaaray ilaa maanta halkii joogto laakiin hadda waxa soo dhamaadeen hal xisbi ayaa taladii dalka Soomaaliya gacanta ku dhigay iyadoo aysan jirin nidaam ahzaab oo lagu heshiiyay iyo shuruuc xisbiyada ah oo dagsan oo heshiis lagu yahay iyadoo aysan jirin dastuur heshiis lagu yahay iyadoo aysan jirin ayadoo aysan jirin doorasho nooc heshiis lagu yahay ayaa niman madax dalka Soomaaliya ka ah xisbi aasteen xillihiin doorashadii annaga go'aan ka gaareyno dastuurkii annaga bedelayno go'aanadii siyaasadeed ee wada jirka dalkan annaga go'aan ka gaareyno xamar amarka ka bixina ayaa dalka Soomaaliya ka hirgalay taasi waxay sababtay walaa xoog leh iyo kurbo dadka Soomaaliyeed ay dhaxda ka galeen in xisbiga cadaaladda iyo wada jirka ay hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aan ka gaaro nooca doorasho ee dalka waxay la mid tahay inay go'aan ka gaareen nooca doorasho ee dalka Soomaaliya xisbiyada wada jir himilo qaran ilaas iyo dhamaan xisbiyada kale ee dalka Soomaaliya ee madaxdu ay sameysteen sababtuna waxa weeye Soomaaliya ma jiro nidaam ahzaab oo heshiis lagu yahay oo doorasho lagu galay oo xisbi guuleystay oo dalka hogaamiye kama jiro ee nidaam qabaa'il iyo heshiis siyaasadeed oo doorasho ayaa meesha lagu soo gaaray ma sha Allah maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiiska ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyi bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaayay kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaar ka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh dhurwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in alla waxsiin ahay maalto waa tagay Dubai waa tagay Dooxa waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin dooda caawtaaga waxa weeye oo baraha bulshada haysato oo dadka Soomaaliyeed is weydiinayaan adduunkii Soomaaliya taageero is weydiinay waxa weeye Soomaaliya goorma ayaa ahzaab intay tartantay doorasho galeen xisbi guuleyst oo go'aan xisbi oo dalka lagu maamuli kara oo go'aanka dawladda oo noqon kara ama go'aanka xisbiga talada haya oo noqon kara xisbi dawladda adiga maxay kula tan daawanay hadii madaxweynihii Soomaaliya labadii gudoomiye ee baarlamaanka ra'iisul wasaarihii dalka madaxweynayaashii isteediyada 3 maamul goboleed oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo magacaabisa markii horeba ku yimid wasiiradii dadkii go'aanka doorashada laga sugay inay gaaraan ee caawa xisbi sameysteen oo ay murashaxiin yihiin ay ku leeyihiin annaga ayaa nooca doorashada go'aan ka gaareen maxaa loo diidanaa shalay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu go'aan ka gaaro doorashada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u dhahayay shaati nin tushtay doorasho ku galmayno su'aalaha jawaabaha u baahan ee social media caawa haysto kaas way arinta labaad telefishinkii qaranka Soomaaliyeed caawa wuxuu tabinayaa xisbi siyaasadeed oo xaflad ku qabsanaya Muqdisho wali lagama tabin xisbiga himilo qaran wada jir lagama tabinin ilaas lagama tabin nagaal lagama tabin xisbiye kalena lagama dhisin oo nabad iyo nolol ah lagama baahinin magac xisbi lagama sheegin caawa laakiin xisbigii dawladda ay sameysatay ayaa TV-ga qaranka toos uga baxay ayadiina waxay abuurtay walaac kale oo xoog leh oo ah sida loogu kalsoonaan karo telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo noqday TV marka hore afka dawladda ku hadlay haddana af xisbi u goori oo aan laga ogoleen madaxda kale qodbadooda qoraaladooda war saxaafadu in la soo qaato aan laga ogoleen ayaa xisbigaas laga ogolaaday ayadiina waxay abuurtay walaac iyo kurba kale hore Mareykanka ayaa u soo saaray digniin waxaana yiri go'aan kasta oo siyaasadeed oo aan wada jir ahayn wuxuu keeni karaa khatar waaweyn oo siyaasadeed iyo kuwa amni hadda waxa la sugayaa go'aano kale oo midowga Yurub ka soo baxa wadamo waaweyn oo Soomaaliya taageera
kusoo dhawow Soomaali Suudanis Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalliimada casriga kombiyuutarka uur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirmaa isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudanis waan eegi doonaa xafladan iyo hadallada madaxdu iyo ugu dambeyn natiijada waxa ka soo baxay Allah uu dulma laakiin aday aragtidaada Soomaaliya oo aan axsaab ka jirin oo heshiis lagu yahay oo doorasho intee galay aysan guuleysanin xisbi go'aan ma ka gaari karaa masiir umadeed doorashada go'aan ma ka gaari karaa xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh midnimadii dalka iyo go'aanada kale masiiriga sida dastuurka wax ka bedelkiisa go'aan xisbi ah ma lagu bedeli karaa haddii wadajir iyo cadaalad go'aankooda uu shaqeynayo ma laga yaabaa in la arko xisbiyo kale oo ayagana doorasho qabsada oo madaxweynayaal sameystay oo go'aan ka gaara nooca doorashada dastuurka iyo midnimada dalka Soomaaliya aad u mahadsantiin aragtida qaybta sayfaalada noore muuqaalkana si shargaray kulantada buuxiisa la amaana Allah